ma ihi saynisyahan kumana takhasusin fiisigiska, isbeyska iyo astronomiga, laakiin waxa aan xiise u qabay oo muddo badan daba socday cilmiga xidigiska. Cilmiga xidigiska oo loo yaqaano astronomy, Soomaalidii hore wax weyn baa uga baxsanaa, waxa ayna yaqaaneen xidig walba godka uu dego. waxaaba tusaale inoogu filan in toddobaatanaadkii xidigiyihii fahmada badnaa ee Caamir Dhagoole oo ugu dambeeyay raggii aqoonta xidigiska wax ka yaqaanay mar laga qaaday hawdka Burco oo London la geeyay si wax looga ogaado aqoonta Soomaalida ee xidigiska. laakiin Soomaalidan dambe cilmigaas horena wax kala ma harin, kan cusubna ee casriga ahna waxba kama baran oo waa hubi burburay. haddaba waxa muddooyinkii ugu dambeeyay wararka dunida ku jiray waxa lagu yeero black holes ama godadka madow. in badanba waxa la ogaa jiritaanka godadka madow oo ilaa xilligii Schwarzschild iyo Einstein maalin walba wuxuunba lagu ogaanayay, laakiin waxa mar qura la arag sawirkooda taas oo shaki gelin jirtay jiritaankooda. 10kii bishii indhaaftay ee Abriil sanadkan 2019 ayaa gabar 29 jir ah ku takhasustay culumta tiknoolajiga iyo kombiyuutarka oo lagu magacaabo Dr. Keita Bowman waxa ay ku guuleysatay sawirkii ugu horreeyay ee laga soo qaado godka madow ee ugu weyn godadka madow, supermassive black hole. afarta dacal ee dunida ay ka dhig telescope fogaan arag dheer leh waxa ayna sawirtay wax aan weligeed la islahayn waa suurtagal. waa aragtida godka madow. sawirkaas waxaa lagu tilmaamay guushii ugu weyneed ee aadama hanto. haddaba waa maxay black holes? godkan madow waa nooc caalam oo kale ah oo aad iyo aad u weyn. qorraxda ayuu ka sii weyn yahay 17 bilyan oo jeer. qorraxduna dhulka aynu ku noolnaa waxa ay ka weyn tahay 109 jeer. waxaa loo socon karaa 336 milyan oo iftiin sanadeed. badkiisana waxaa lagu qiyaasaa 237 bilyan oo kiiloomitir. waa godka wax waliba ay ku dhacayaan, wixii ku dhacana ayna ka soo noqosho lahayn, oo leh cuf isjiidad oo aan la loodi karin, oo xitaa iftiinku aan ka badbaadi karin oo liqaya. xidigaha ku dhow oo dhan buu liqayaa, kuwa daciifa ayaa ku daadanaya, meerayaasha ku dhowna waa uu jiidanaya. black hole waxaa la saaray fasiro badan, filmo badan ayaa laga sameeyay, xataa waxaa la isweydiiyay gadaashiisa ama guntiisa maxaa ku dambeeya. waxaan uu liqaya xaguu geynayaa yaa inooga soo warrama. xagga sayniska waxaa la aaminsan yahay inay suurtagal tahay in godkan madow ay ka dambeyn karto caalam kale oo aan weli aadamuhu daafurin, sidoo kalena ay hadda kow tahay xog raadintiisu, loona baahan yahay cilmi baaris intaan ka badan oo aad u qoto dheer. aragtida diinta islaamka ee godkan madow. dhinacyo badan baa laga eegi karaa godkan madow ee sawirkiisa la soo helay, waxaana suurtagal ah inuu yahay dhammaadka dunida, sababtoo oo haddii uu liqo qorraxda oo keli ah taasi waxa ay noqon doontaa dhammaadka nolosha. sidoo kale qiyaamaha waxa ay naloo sheegay in dhulka, cirka, cadceedda iyo dayaxa la duubi doono. hadda ka hormaanka aadamaha ma qiyaasi kari jirin sida cirka iyo dhulka loo duubayo. waxaaba suurtagal ah in dadka qaar ay u fasiran jireen in sida kaarbadka loo duubayo oo meel lagu tiirinayo qorraxda. laakiin hadda waxaa la ogaaday in black hole uu awood u leeyahay in uu liqo meeraha ugu weyn meerayaasha ee Jupiter. weliba wax kasta oo uu liqayo waxa uu duuduubayaa sida caag la dhalaaliyay. sababtaas bay ugu xoog badan tahay in black hole uu yahay awood ka mid ah awoodaha Rabbi ee naga daahsoonaa ee hadda la ogaaday, iyadoo in badan quraanku nagu booriyay in aynu eegno cirka oo aan daawano falagga iyo isbeddelkiisa mucjisada ah. aragtida labaad. godkan madow dadka qaar waxay u fahmeen naartii jahannamo ee naaraha ugu weyneed ee inta ay wax walba leeqdo oranaysay hal min masiid dheeraad ma la helayaa. weliba godadka waaweyn ee madoobi waa ilaa 7 sida ay cadaabuhu u yihiin 7. waxaase ugu weyn kan aynu hadda sawirkiisa helnay ee loo yaqaano supermassive black hole. aragti saddexaad baa jirta oo aad xoog badan. aragtidaasi waxa ay leedahay tilmaantan black hole ee godka madow waxa uu ku jiraaba quraanka oo waxa u daliil ah suuratu Daariq. Rabbi subxaanahu wa ta'aala waa kan inoogu sheegay suuratu Daariq in uu jiro meere ama xidig habeen socod ah, mugdi ku dhex socda oo habeen booqda ah, isla markaana ah xidig god ah oo daloola. waa halka aynu uga tusaale qaadanayno godka madow black hole. haddaba maxay tahay sababta aynu xidigan godan ee daloola ugu malaynayno inuu yahay black holes? waxa ayna sababtu noqonaysaa in Rabbi subxaanahu wa ta'aala uu ku dhaartay waxa uuna la simay samada inteeda kale, was-samaa'i wad-daariq, waxa aan ku dhaartay samada iyo daariq. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق
الطارق النجم الثاقب. daariq maxaa ku ogeysiiyey buu rabbi leeyahay wanajmu saaqib xidigii daloolay ama daloolinayay. marka halkaa waxaa laga fahmi karaa xajmigiisa iyo weynida daariq ama najmu saaqibka inuu yahay mid aad iyo aad u weyn, waana run oo godkan wareegaya waa uu weyn yahay. sidii aynu hore usoo sheegnana black holesku waa ay ka wen yihiin dhulka, cadceedda, dayaxa iyo meerayaasha kale ee ku dhex jira soolarka ama caalamkan.